waxaan qaadanaynaa animation tab. waxaa leenahay the animation tab contains waxaa ku jiro groups for the tools relating to add a custom animations to slide object within a slide. marka animation tabka waxaa ka heli kartaa groups ama tools la xiriiro si aad ugu soo dartid slidekaaga animation marka waxaa leenahay textiga ama shapeska markaas ku jiro in la dhaqaajiyo. adding animation juice waxaa doorataa to have a text dissolve on the screen art object apply in from an angle or sound build as a slide is presented. markii animation la sameynayo ama animation aad kusoo dareysid text oo kale in slidekaaga aad ka dhigtid mid ku dhex soconayo object ama shape oo kale inaad dhaqaajisid, cod inaad ku dartid, shapeska marba dhinaca kasoo galaya inaad ka sameyn kartid iyo waxyaabo kala badan. on your slide you can add animation to text box, image, shapes or chart oo loo yaqaan slide object. marka slide objectiga sheegana waxaa waa chartiga oo kale, image oo kale, shapeska caadiga oo boxyada waxyaabahaas dhan waxaa leenahay objectiga. marka qaybahaas dhan la dhaqaajin doonaa. click on one of the slide object ama text ama image mid kamid to select it sub-authority. in the animation tab click waxaa siinaysaa add animation to bring up listing of a common effect to add. marka waxaa leenahay animation tab furaysaa si kugu soo baxaan animationska markaas diyaarsan. you can also access a complete listing of animations for entrance, emphasize or exceed effect. marka effectyada way kala duwan yihiin, noocyo badana jiro. qaybo oo inuu textiga soo galayo kale inaad ka dhigtid, qaybo oo textiga sii baxayo kale iyo qaybo kala badan aan ku arki doonaa. once you have selected this option markaad dooratid the appropriate plate will appear on the right side of the slide. marka midka markaas aad dooratay ama animationka aad saartay wuxuu kaaga soo muuqan doonaa dhanka midigta ee slidekaaga. now you can single click on any animation and preview the effect. marka mid u sameyn kartaa kadibna preview ku sameyn kartaa effectiga markaas aad ku sameyd on the selected object. this window also shows wuxuu ku tusaysaa the full range of the effect that are available kuwaas markaas diyaar. markii presentation sida caadiga viewga caadiga u sameysidna waxaa kusoo bixi doono effectiga oo dhameystiran markaas kuu saarnaa. kadibna okay waxaa leenahay click okay to add the effects ugu dartay. sawirka meesha nooga muuqdo qaybta midigta right side ka arkeyna waa kana tusaale test presentation oo kale markii la saaray animation meesha waxaa ku qoran one, yani animationska one hadda waxaa laga wadaa hal xabaa kuu saaran. mid kale haddaa ku dartid 2, 3 sidaasoo tirada wadi doonaa. marka animation qaabkaas ku sameyn kartaa. waxaa jiro waxa la yiraahdo transition marka waxaa leenahay isagana waxaa waaye markii slide aad ka gudbaysid, markaad slide ka gudbaysid mid kalena aad gudbaysid, yani effectiga markaas la sameynayo waxaa la yiraahdaa transition. marka in the transition tab you can set up effect for transition from one slide to the next. marka slideka marka waxaa sameyn kartaa mid inaad ka tagto mid kalena aad u socotid isbedelada markaas dhacaya qaabka oo ku gudbaayo midka kalena oo kusoo galaayo. the default transition does not involve any special effect. marka midka defaultiga ee wax oo effect ama transition ma saarno oo none waayo. xalayna marka select aad doortaa the slide from thumbnail spin ka door on the left ee dhanka bidix. click on the selection to apply the effect on the current slide. markaas aad taagintaa si effect ay ugu sameysid. the effect occurs between wuxuu ka dhacayaa the selected and previous slide, labadaas meel oo ka dhacaya effect. and you can then select waxaad dooran kartaa effect options for the transition ka dooran kartaa and the slide advancement setting qaybtaas ka dooran kartaa in the tools to the right of the transition qaybta midigta transition ka. click apply to all si uu apply gareys dhammaan settingka wax ku jiro kale si uu apply gareys. xalayna marka slide show cashirkeena ka bilowdo doona practice-keena sameeynayna. xalaynahay kan oo kale waxa ku sameeynayna practice-kada. xalayna animation marka rabno inaan sameeyno waxaan meenaysaa animation tab tusaale kadib waxaa leenahay hadda waxba iima dooran waxna hadii ii doornayn wax active ma ah
yani waxa active kuma soo baxay. Tusaale waxaad doortay xidigtoo kale animation aan rabaa inaan ku sameeyo, waxaa leenahay tusaale noocan oo kale ka dhig. calanka waxaa ka dhigaysaa isagana sidaan oo kale, kan waxaa ka dhigtaa sidaan oo kale. mid inta soo fur kadib waxaa leenahay kuwa badan inta ku jiro midkaan oo kale noo soo dooro. kadib si aan u fiirin waxaa leenahay qaybtan hoose ku dhufo. haddaad dhaho falaarta oo keyboardka taabto waxaa isoo baxay calanka iyo shape ushin way baxday. marka qaabkaasa marka waxaa u sameyn kartaa animation. tusaale hadda ushoo kale markaad doortay qaybtan exceedka waa micnaha markii yani uu baxayo shapeka ama textiga markuu sii baxayo. qaybtan waxaa waaye yani isagoo meesha ku jiro inaa wax kaga badbadasho. qaybtana soo gelidda waa micnaha saddexdaas qayb u kala baxaa markii la joogo animationska. marka qaybtan hore ciwaankiisa waa entrance, qaybtan waa emphasize-ka, qaybtana waa extra. marka emphasize-ka waxaa waaye inaa yani waxa asagoo gudaha ku jiro inaa yani dhaqaaqajin kartid. tusaale hadda kii waxaa ku sameeyey oo bixitaanka iyo mid kaloo oo soo galida ah iyo mid kaloo gudaha. marka midka gudaha waxaa ka dhigaynaa 3 shay hadda inta noo yaala. tusaale kan waxaa noo saaran midkii oo bilowga, kan labaadna waxaa sameyn kartaa emphasize. tusaale kan oo kale ka dhigaynaa. midka saddexaadna shapekan waaye waxaa ka dhigaynaa kii oo bixitaanka, yani si aan ugu fahnay saddexda shape. marka waxaa leenahay noo soo fur, kadibna waxaa leenahay preview. hadda wax noo saaran soo jeeda iyo midkaas saddexdii xabo saasay noogu soo muuqanaya. marka waxay ku xiran tahay baahida markaas aa u qabtid iyo qaabka u isticmaashid. way badan yihiin, yani mid kasta waxay ku xiran tahay baahi gaar u taagan yahay. waxayna ku xiran tahay markasta sidaa ugu baraadikaysid iyo markasta sidaa ugu isticmaashid. waxna ugu xigo transition waxaa isticmaala labada slide. hadda kan markaa kasoo gudbo oo kan soo galaayo, marka isbedelka dhacayo maxaa yani sida ka dhigi karnaa. waxaa transition imaw, kadib waxaa imaada qaybta transition. qaybaha dhanaa markaas aad sameyn kartaa, isticmaali kartaa. asagana sida wuxuu leeyahay subtitle, wuxuu leeyahay existing iyo wuxuu leeyahay dynamic. tusaale qaybtan oo kale haddaad dhaho qaybta u horeyso waxaa ka dhigtaa sidaan, qaybta labaadna waxaa ka dhigtaa noocan oo kale, qaybta saddexaadna waxaa ka dhigtaa noocan oo kale. marka hadda haddaad dhaho preview waxaa iisoo baxay kow saasoo kusoo baxay animationska ku jiro. marka xigto qaabkaanoo usoo gala mid kalena u baxay. soo ma jeed. marka qaabkaas waxaa u sameyn kartaa transition animationna qaabkaas u sameyn kartaa. wuxuu kaloo leeyahay transitionka qayb la yirahdo effectyada. marka mid kasta aad doorato wuxuu leeyahay right iyo left. qaar waxay leeyihiin up iyo down, kuwaba yani koox kasta isku mid maaha. marka qayb kasta qayb gaar ah. tusaalekan oo kale wuxuu leeyahay horizontal iyo vertical. haddaa dhaho vertical ka dhig waa midka u dambeeya. tusaale kana hora tagaa oo ku dhufanaa, kadib waxaa dhaha marka soo galaayo mujida. qaabkaas oo kale u sameyn kartaa transition. marka animation iyo transition intaas ku ekeynayna cashirkeena. waa mahadsantihiin.